xidiga qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo xulka qaranka Faransa N'Golo Kante ayaa waxa uu ka hadlay waxa uu ka aaminsan yahay isaga iyo saaxiibadiisa saxiixa cusub ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea dhawaan ku soo biiray Christian Pulisic. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee dalka Germany ayaa xaqiijisay Arbacadii la soo dhaafay in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay kala heshiisay saxiixa ciyaaryahanka Amerikaanka ah Christian Pulisic adduun dhan 58 milyan, balse Christian Pulisic ayaa ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan si amaah ugu sii ciyaari doona kooxda reer Germany ee Borussia Dortmund. Madaalaha reer France N'Golo Kante ayaa wareysi uu ku bixinay wargeyska Daily Mail ee dalka England waxa wax laga weydiiyay saxiixa cusub ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Waan ognahay inuu yahay ciyaaryahan wanaagsan, waxa uu ka qabtay shaqo fiican kooxda Borussia Dortmund. Waan ku faraxsanahay inaan Chelsea la soo saxiixato. Christian Pulisic ayaa dhankiisa ku soo qoray baraha bulshada 2019 waxaan u wareegay Chelsea iyo tartan cusub oo horyaalka Premier League ah. Waxay ii tahay sharaf in aan heshiis u saxiixo kooxda sidan oo kale ah. Waxaan si aad u doonayaa waayo aragnimadan cusub ayuu ku soo qoray baraha bulshada ciyaaryahanka Amerikaanka ah Christian Pulisic kadib markii uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee ka dhisan galbeedka magaalada London.